goordhow waxaa la isugu yeeray warbaahinta madaxa bannaan kadib markii madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed uu isaga baxay aaga uu ka deganaa Meeraayo. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo xiisadda magaalada caasimadda Muqdisho oo degan kadib markii waan siyaasadeed wadeen odayaasha dhaqanka ee dhaqan gashay taasoo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo dib ugu laabtay magaalada guriga uu ka deganaa magaalada caasimadda Muqdisho dib ayuuna ugu laabtay aagii kilomitir 4 ee markaasi garoonka aadan Cabdulle Cismaan International Airport ee magaalada caasimadda Muqdisho. goordhow dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto hubkii ay ku furatay aaga Meeraayo tan iyo markaasi shalay dagaaladu ay ka socdeen. soo dhawaada daawadayaal, taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 5 bisha 6 ee May aanada June sanada 2020. haddii aynu ku horeyno goordhow waxaa la isugu yeeray warbaahinta madaxa bannaan Mahdi Cumar Muumin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana goordhow warbaahinta la hadli doona waxaana faahfaahin ka bixi doona hubkii laga furtay waa markaasi madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo dawladdu dagaal adag ee markaasi la gashay iyadoo ay ka saari weysay dabcan halka uu kaga sugnaa aaga Meeraayo ee markaasi degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. in ka badan 2 maalin ayuu halkaas ku sugnaa ra'iisul wasaare aanada madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed xarunta himilo qaran ayaana markaas waxa laga aasaasay waa markaasi aaga Meeraayo ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. waan tan shalay soo bilaabatay wadeen odayaasha dhaqanka beesha Mudulood iyo markaasi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed aanada taliyaha ciidanka xoogga dalka Shareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud iyo markaasi Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaana markaasi wax lagu guuleystay in la xalliyo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo dib uga laabto halkii uu ka deganaa hoyga kilomitir 4 ee markaasi agagaarka waa garoonka aadan Cabdulle Cismaan Airport ee magaalada caasimadda Muqdisho. Turkiga ayaa qayb weyn ka ahay waa markaasi waantan sidoo kale Mareykanka iyo markaasi Ingiriiska ayaa ku lug lahaa in markaasi la dhaxdhigo xubnahan beesha waa markaasi xubnaha mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya taasoo lagu guuleystay oo markaasi dib loo celiyay waa markaasi madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo xilligan ciidankiisu ay isaga baxeen iyagoo hubkoodina waxay markaasi dib ugu laabteen halkii uu ka deganaa magaalada caasimadda Muqdisho. Shariif Sheekh Axmed wax ka badan markaasi 2 maalin ayuu ku sugnaa aaga Meeraayo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir halkaasi dagaal adag ayuu la galay taliyaha waa markaasi nabad sugidda Maxamed Salaad oo markaasi qadka taleefanka ay ku wada hadleen ayuu wuxuu ka codsaday markaasi beebayaal iyo gawaari loo gubay ciidamada dawladda ee halkaas soo qaataan Sheekh Shariif oo markaasi arintaas ugu aqbalay waxaanu ciidankiisa ku amray inayna wax dagaal la gelin xubnaha markaasi ka socda dawladda. sidoo kale halkaas waxa tagay taliyaha ciidanka xoogga dalka Shareeye Guuto Maxamed Ibraahim Maxamuud oo la kulmay madaxweyne hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa suuna qayb ka ahaa saraakiisha maanta la kulantay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo markaasi ka dalbatay inuu markaasi oo dib ugu laabto hoyga kilomitir oo ka deganaa magaalada caasimadda ee markaasi Muqdisho. odayaasha beesha Mudulood ayagoo qacan weyn ay ka qaanteen arintan madaxweyne hore waxay ku qanciyeen in markaasi oo dib ugu laabto hoyga uu ka deganaa magaalada caasimadda ee markaasi Muqdisho. wixii inta ka dambeeyay dawladdu cadaadiska way ka qaaday waa markaasi madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed dib ayuu ugu laabtay halkii uu ka deganaa hoyga magaalada caasimadda Muqdisho. sidoo kale halkaasi kulamo ayuu ka bilaabi doonaa. waxa la leeyahay arinta la yaab kale waxay tahay in Turkiga oo markaasi uu ballan qaaday madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed inuu markaasi gogasha wada hadalka ay dhexdu dawladda dhigi doonto madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu amray inuu isugu yeero waa markaasi madal degdeg oo looga hadlayo xiisadda halkan markaasi ay ku dambeyn doonto wada hadal toosane xubnaha mucaaradku ay markaasi la gali doonaan dawladda dhexe ee federaalka kadib markii uu soo dhamaaday dagaaladii qaraara ee markaasi labadii bari ka soconaya caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Turkigu wuxuu markaan cadaadis saarayaa xubnaha dawladda wuxuuna markaasi ku cadaadinayaa inay markaasi la kulmaan madaxdii hore ee dalka ayna kala xaajoodaan xaaladda xilligan uu dalku marayo iyo halka ay markaasi ay ku dambeyn doonto. dhinaca kale dawladda Soomaaliya goordhow waxay isugu yeertay warbaahinta madaxa bannaan iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee markaasi ku sugnaa aaga markaasi ku dagaalamayeen madaxweyne hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo markaasi ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre.
shalay dowladdu waxay soo bandhigtay hub ay sheegtay inay ka furatay ra-iisul wasaare hore xasan cali khayre oo ay markaasi dagaal adag la gashay waxaana markaasi wadahadal dheer kadib uu la galay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad waxaa lagu guuleystay in markaasi la qanciyo waa xasan cali khayre oo dibna uga laabto hoyga uu ka degan yahay aagga Bermuda degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir dowladdu shalay galab waxay soo bandhigtay hub ay sheegtay inay ka furatay waxayna markaasi ku dhawaaqay Mahdi Cumar Muumin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed in markaasi lagu dhaqaaqi doono aagga Miranyo wixii inta ka dambeeyay wada hadal ayaa socday xiisadina oo lagu guuleystay in la dejiyo oo dib loo celiyo waa markaasi madaxweynaha hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed goordhow Mahdi Cumar Muumin ayaa warbaahinta la hadli doona waxayna markaasi ka warbixin doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo howlgallada ay sheegtay dowladdu inay markaasi ku soo afjartay xubnaha mucaaradka waxaana mararka qaar ay tilmaamayaan in la soo bandhigi doono hub laga furtay Mahdi Aaraade waa madaxweynaha hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed dowladdu waxay sheegtay inay soo bandhigi doonto hubkaasi iyo agabyo fara badan oo laga furtay markaasi ciidanka uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee markaasi Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii toddobaad ee dalka ayuu ahaa waxaana la ogaay xilligii oo markaasi talada hayay si weyn wuxuu la dagaalamay xubno markaasi ayaguna ahaay mucaarad xilligaasi oo la ogaay sida uu markaasi uga saaray sidoo kale Ethiopiankii xilligii markaasi dalka soo weerareen ayuu madaxweyne ka ahay xilligaasi waxaa la ogaay inuu si weyn markaasi ula dagaalamay xubno Ethiopianka ah ee markaasi dalka soo weeraray wararka qaar hoose waxay tilmaamayaan in dowladdu ay markaasi ku weysay dagaalkan in ka badan hubab waaweyn oo markaasi oo looga furtay ciidamada dowladda taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad ayaana waxa uu sheegay gawaari waaweyn oo loo gubay ciidamada dowladda in markaasi uu ku codsaday Shariif Sheekh Axmed in laga qaado halka ay markaasi ku sugan yihiin xubnaha mucaaradka Mahdi Cumar Muumin dhawaan ayuu warbaahinta la hadli doonaa waxa uu ka warbixin doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo howlgallada ka soconaya gobolka Banaadir dowladdu waxay sheegtay in maleeshiyad hubeysan ay soo weerareen saldhigyada ay lahaayeen ciidamada dowladda markaasina ku jirto howlgalkii ugu dambeeyay oo hore loogu guuleystay inay howlgal ay kaga saareen xasan cali khayre oo ciidamo waa markaasi jabhada watay waa sida hadalka ay u dhigteen iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo isaguna ku sugnaa aaga Miranyo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir Mahdi Cumar Muumin ayaana goordhow ka warbixin doona warbaahinta madax bannaan ay isugu yeeray waxaana la sheegay dowladdu inay markaasi soo bandhigi doonto hub waaweyn oo ay ka furatay waa markaasi madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed balse ma cadda in hubkaasi uu yahay in markaasi laga furtay dhinaca kale waa markaasi weli wax war kama soo bixin madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed waxa uu isagoo oggolaaday kaliya inuu dib ugu laabto oo ka guuro aagga uu ka deganaa xaafadda Miranyo halkaasina ay sii ahaan doonto waa markaasi xarun himilo qaran oo xarunta labaad ee aagga Miranyo sii ahaan doonto oo markaasi shaqaalaha waa xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynaha hore dalka Shariif Sheekh Axmed ay markaasi ay sii ahaan doonto xaafadda Miranyo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir Shariif dib ayuu u laabtay waxauna markaas ku laabtay kilomitir 4 aaga uu deganaa ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre ayaa isaguna halkaas ku laabtay waxa la kulmay waa markaas xubno si aad dowladda u dhaleeysan balse dagaalkan ka soo muuqan oo kamid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ra'iisul wasaare hore markaasi Maxamed Xuseen Rooble iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdi Qaydiyada ayaa kamid ah عبد حسن على خيران وحلا سعدي تليه وريه هيدنا بس قد يخنا كنيسة محمد عبد الله سنبلورشة أي سورة كمدة حمنا سيد وين أي دولة ويرتي هذا با وحيابها كسو كرة إيه ورك جورد وكسو بحدونا دولة فدرال الصومالية إيه هوب كأي شكتين كفرتي مدحونا ورد لك الشريف شيخ أحمد هل كان يشكو أشياء دوشو حقي وجد بجد هذا لك مقال كمل فوق جارسيا وقولنا صعبير صاحبيال سيادو إشان حقي وجد بنجسو جارة دافع عالمك